weerar kasta oo ka dhanay ciidda jasiiradaheena waxaynu kaga jawaabi doonaa aargudasho aan xeerin lahayn xakamaha inta meel iska dhigno ayaanu gacanka Bershiya ka dhigi doonaa mid dhiigga kuwa soo duulay qulqulo ayuu maalin ka hor yiri gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Maxamed Ghalibaf oo ahaa qofka ugu horeeya madaxda Iiraan ee Mareykanka uga digay isla weerarka uu xalay dalkaasi ku qaaday jasiiradda Kurk oo loogu yeero xudunta dhaqaalaha Iiraan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay shaaciyay hanjabaad ahayd inuu jasiiradan weerari doono halka uu saacado kadibna baahiyay muuqaal tusay weerar ciidamada Mareykanku ka fuliyeen goobtan loogu yeero inay tahay ubuucda dhoofka shidaalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah iyo isha ugu muhiimsan dhaqaalaha waddankan. weerarka Mareykanka ee jasiiradda Kurk oo aan weli khasaarihiisa dhab loo warin waxa uu daboolka ka qaaday in dagaalka bariga dhexe ka talaabay xadka duqeymaha military oo kaliya isla markaana uu jihaystay dagaal dhaqaale labada dacoodna ay doonayaan inuu midba kan kale culays dhaqaale saaro si guusha loogu dhawaado. jasiiradda Kurk waa albaabka uu ka baxo 90% dhoofka saliidda ceeriin ee Iiraan taasoo ka dhigan in Mareykanku beegsaday albaabka ugu muhiimsan guud ahaan dhaqaalaha waddankan goob haddii la burburiyo si rasmi ah howlgab uga dhigaysa guud ahaan dakhliga Jamhuuriyadda Iiraan. madaxweynaha Mareykanku waxa uu maalmo ka hor sheegay in dagaalku marxalad dhammaad joogo Washington ay goobayso guul istiraatiiji ah oo ay ku soo afmeerto gulufkeeda Iiraan. weerarka jasiiradda Kurkna waxa khubaradu ku fasireen inuu noqon karo dharbaaxada ugu dambaysa ee Mareykanku rabo inuu ku gabagabeeyo duulaankiisa dhaqaalaha dunida daandaamiyay ee joojintiisu haatan daruuriga u muuqato. beegsiga dhaqaaleedka ugu muhiimsan Iiraanna waxa uu horseedi karaa in xiisadu ka ballaarato mustawaha ay haatan joogto oo jasiiradda Kurk way ridda ugu horeysa ee Shiinuhu ka helo shidaalka ugu badan. ka hor duulaanka Trump sheegay inuu jasiiradan waxyeelada daran ku gaarsiiyay waxa warbaahintu tabisay in Mareykanku gobolka u soo diray 2500 oo askari oo Marines ah. tan waxaa darsayaashu qiyaaseen inay qayb ka noqon karto howlgallo qorsheysan oo Washington doonayso inay ku waxyeelayso xudunta dhaqaalaha Iiraan. waxaa loo doorayaa suurtagalnimada howlgallo Mareykanku kula wareegi karo jasiiradda Kurk inkastoo marka la eego hab difaaca istiraatiijiga ah ee Iiraan aysan dhab u fududayn saada ah in Washington jasiiradan la wareegi karto. haddana haddii ay dhacdo waxaa loo doorayaa in militariga Iiraan la fahantiisu wajihi doono culays istiraatiijiyadeed oo dhinac ah iyo mid dhaqaale sababtoo ah jasiiradani waa isha maaliyadda ciidanka waddanka gaar ahaan ilaalada kacaanka. Iiraan oo docdeeda caan ku ah difaaca qaybsan ama baahsan oo sahlay inaysan jirin jiho looga tashan karo difaac iyo weerar celiskeeda. waxa khubarada militarigu qiyaasayaan inay horey uga baaraandegeen hanaanka difaaca jasiiradan halbowlaha u ah jiritaanka waddanka oo dhan. doonyaha dheereeya gujisyada badda droniska shaahid iyo ciidamada lugta ahba waa caqabada ugu weyn ee Mareykanku ka wajihi karo duulaan toos ah oo uu ku galo jasiiradda Kurk taasoo fogeynaysa qiyaasta guul degdeg ah oo Washington ka heli karto dagaal ay ku gasho jasiiradan.